kusoo dhawaada kubadda cagta Tube iyo falanqeynta kulanka weyn ee u dhaxeeya Real Madrid iyo kooxda Atletico Bilbao. Kooxda uu hogaaminayo tobarihii hore ee xulka qaranka dalka Spain Julian Lopetegui ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta. Jose Luis González ayaa garsoori doona ciyaarta ka imaan doonta garoonka San Mamés Paria ee kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao. labada kooxood qaab ciyaareed fiican ay ku jiraan inkastoo kooxda kubadda cagta Madrid ay wada badisay kulamadii ay ciyaartay. Bilbao kaalinta 6aad ay fadhisaa 4 dhibcood ay haysataa, Madridna kaalinta 2aad 9 dhibcood ay haysataa. Saadarteeda waxaan fiirin doonaa xogta kulankan. kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ayaa badisay hal kulan, 17 kulan oo La Liga ee Real Madrid wajahday, 3 bareejo galeen, 13 kulan waa laga badiyay. guusha kaliya ay gaareen ayaa timi 1-0 ciyaar ku dhamaatay March 2015. ugu yaraan 2 gool ayaa laga dhalinayay kulan walba. marka gurigooda la joogo Bilbao ayaa laga adkaaday 9 kulan, 13 kulan oo Real Madrid wajaheen, waana guuldarada ugu weyneed kooxda ay kala kulmaan. Real Madrid ayaa badisay 3 kulan ugu horeysay La Liga xilli ciyaareedkan, 5 kamid ah 7 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay. kooxdan ayaa badinaysay 4 kulan ee ugu horeysa horyaalka Spain ee La Liga. saadarteeda kooxdan ayaa hadda haysata qaab ciyaareed wanaagsan. Karim Benzema ayaa dhaliyay 4 gool, kaliya 5 shoot oo target ayuu sameeyay La Liga xilli ciyaareedkan. ciyaaryahanka reer Faransa markii ugu dambeysay waxaa la ogaa in 19 kulan uu ku dhaliyay 4 gool oo kaliya. waad ku maasantahay daawashada warbixintan. fadlan subscribe dheh kubadda cagta Tube, qaybta hoose ee commentigana ka dhiibo aragtidaada kulankan u dhaxeeya Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao.